عبدوية سوي ذا يتيبي سومالي وين سومالي وين وحانو أيا سالو asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. soo dhawaada dhegeystayaal makastoo dunida daafiya ka joogtaan. waa barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta. waxaan kusoo dhaweyn doonaa oo noo daadihin doonta barnaamijkeena Ikraan Cali. soo dhawo Ikraan. mahadsanid fahmo. kusoo dhawaado dhegeystayaal barnaamijkan suugaanta. maanta waxaa marti inoogu ah khadka telefoonka noogala qayb qaadanaya isagoo ku sugan dalka Mareykanka waa alfanaan Maxamed Macalow Nuur. dadku badankiisu waxay ku yaqaaneen inuu yahay muusikiista garaaca aalada maaragtay kala duwan ee piyaanadu ay kamid tahay. bal marka hore aan weydiino ustaad waxaad iminka ku sugan tahay Mareykan anagu ka warqabnay inaad adigu deegaankaagu dalka Ingiriiska uu yahay maxay tahay sababaha halkan aad u joogtid? horta ikraam waa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaha Soomaali weyn iyo ummadda Soomaaliyeed oo i maqlayso. aniga sanad kasto waxaan aadaa dalka Mareykanka, waxaan ka tirsanahay guddi oo fanaaniin ah oo bilaa xuduud la dhaho oo ka shaqeeyaan library-ga dalka Mareykanka sana ku dhaaf u aadaan ayaan ka mid ahay. marka maxaa xagga laga qabtaa? marka waxaa laga qabtaa bandhig faneed ayaa lagu sameeyaa oo qaaradda Afrika ama Carabta ka mid ah. marka sanadkan shirkii aan ka qayb galay waxaan noo ballan qaadeen bisha 1 July ama 7 October in nala sii doono hal sac oo library-ga ah oo aan keeni doono fanaaniin Soomaaliyeed oo ka dhigi doono bandhig faneed oo Soomaali ka turjumayo inay ku fiirsadaan marka ku nool Mareykanka marka Congress qaar ka mid ah. markii ugu horeysay baa mise waa horey u dhacday? aniga waxaan ka qayb galay kii koowaad 2015 ayaan ka qayb galay aniga iyo fanaanka weyn ee Suudaan Cabdikariim Al-Kaabuli. Suudaan iyo Soomaaliya ka qayb galay. waa sano ku dhaaf, sanana waa shir, sanana waa xaflad. marka sanadan waxaan rajaynaynaa insha Allah 2019 aan ka dhigno. markii hore waxaan la sii 2017 Soomaali. marka si adiga oo ma dhihi karno amar Ilaahay waaye dib aan ugu dhacay, laakiin warqadaan ka gaarsiiyey iyadoo ka dhiman tahay 6 bil oo ku codsanayo in dib loola dhigo sababtoo ah waxaan awoodi waayay markaas qarashkii loo baahnay dhinaca dawladda iyo dhinaca safaaradda waa isheli waayeen. marka sidaas darteed 6 bilood oo dhimantahay waxaan ku iri sanadan ma karno hanoola bedelo. waa noola bedelay sanadkan shirkiyaan imid waxayna siiyeen hadduu Ilaahay karaare noqdo October 7 October 2010 ama 1 July. waxaana soo noqonayaa markii nala siiyo insha Allah February aan kusoo laabanayaa. markaas ayaan qabanqaabadii bilaabayaa sababtoo ah howlka aan ku dhigayno waa lacag, fanaaniintana waa lacag tigidhkooda iyo waxooda waa inaan qabanaa. marka dadka Mareykanka hal qafood ama 2 qafood ay bixinayaan tigidh, laakiin wax adiga aad ka helaysid oo ziyaada ah adaa ismaamulaya. marka hadda waxaan rabaa mar allaala markaan February aan kusoo noqdo Mareykanka oo keeda aan helo inaan dhex galo ummadda Soomaaliyeed, tujaarta sida Dahabshiil, Hormuud, Albarakaad Malla iyo qoloyinkan xawlaadaha oo Soomaali inaan taaquleen aan keeno si magaca Soomaaliyeed aan rabaa. aniga waxaan u ordooyaa magaca Soomaaliyeed iyo dhaqanka Soomaaliyeed in hal mar aan meeyaas ariga Mareykanka White House-ka aan dhex geeyo. aniga waxaan ninka ugu horeeyey oo magaca Soomaali ku aadimaas. haddana waxaan rabaa dadkan kale la jooga fanaaniinta waaweyn ila mid ah ama iga waaweyn ayagana anagoo dhaqanka iyo hiddiga aan wadano meeyaas aan barnaamij ka dhigno, dawladeedana sharaf ay u ahaato, taariikhna ay u ahaato shacabkeena Soomaaliya. ustaad sida ka warqabto Mareykanka Soomaali badan baa degan magaalada Minnesota saa og tahay Soomaali badan baa degan oo iyaga naftirkooda bisha July loo aqoonsaday inay tahay maalintii Soomaaliya xorriyadeeda ay qaadatay. marka iyaga naftirkooda misleedahay barnaamijka noocan oo hadda mid weyn ah way qayb ay ka noqon doonaan fanaaniinta xagga joogto kale. qasab way aniga markaan lujan dhahayo waxaan ka wadaa Ikraam halkan markii lagu dhahayo Congress-ka library-ga barnaamijka dhigaysid waa subax
wuxuu bilaabanaa 10ka 11 wuu dhamaanayaa marka aniga waxaan qorsheynayaa hadduu 11 ay dhamaado habeenkii inaan ka todno ummadda Soomaaliyeed ku nool Washington inaan barnaamij kooda luuliyan ka qabano subaxii kooda luuliyan inaan ka baxno Washington Minnesota shacabka Soomaaliyeed inaan u dhigno kooda luuliyo aniga iyo fanaaniinta aan ugu talagalay markaas oo halkaas imaan doono Washington markaan ku dhahay aniga qabanqaabada waxaan u golaa in lacag waxaa loo baahan yahay tigidhadii iyo wixii inaan sii diyaariyo waa tahay ustaad sidaad ka warqabto markaan maanta dhinaca kale aan meel kale kaaga leexdo maanta magaalada Muqdisho muddo aad u far badan ama sanado badan baa in ilaahdo waxa maanta lagu dhawaaqay in la dhagax dhigo oo mar kale dib loo dhiso oo shacabku qayb ay ka noqdaan adigu waxa tahay nin muddo badan golihii mutida magaalada Muqdisho joogay markii uu shaqeynayay fankii iyo suugaantay ka socdeen siday kula muuqata maxay kaaga dhigantaa adiga arinta maanta la sheegay horta marka koowaad waxaan iloobay igaraale ahaaw shalay maanta waxaa geeriyooday gabar fanaanad ah Faadumo Maalahay Shumay si wada magaceeda aan gafeenin gabadhaas horta ilaahay u naxariisto Shamsa Shumay anoo ku hadlaayo magacayga iyo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed ilaahay u naxariisto tan lamaad tiyaatarkana laba shaybo aniga waxaan ahay ninkii soo jeediyey fikradda keenay in tiyaatarkaas loo bixiyo guriga hiddaha iyo dhaqanka Maama Daleys tan halkaysana waxaan soo jeediyey guriga hiddaha iyo dhaqanka Maama Gaduuda Carwo aniga dhismaha ma diidani laakiin waxaan ka xumahay haddii magacaas oo Daleys la sii waayay in fanaaniinta Soomaaliyeed godob laga galay sababtoo ah Gaduuda Carwo ayaa u naxariisto iyo Khadiija Cabdullaahi Xamiid Daleys waa labadii gabdho taariikh ugu lahayd fanka Soomaaliyeed oo soo bilaabay asoo wax kala diidayo taariikhdeedana waan keenay waad aragteen intaas fariinna waa u soo faray madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka warfaafinta kii hadda kulli ilaa hadda wax jawaab ay isoo siiyeen male laakiin aniga waxaan jeclaan lahay in qaftaas lagu xuso أنا عندي لو ديبو وأنا فرحسناي إن لا ديسو إن فنانينتا لكن لو ديري كليو لكن هذا تاي وهلا بسايا تياتر كيان لو بحنايا مركو حكو عدانيسا فنانينتين الصوماليات أنا صوب الله عبد الله كرشي علي سبولي حسين أو فرح مثلا دكتور رافي أويس جيدو علي عثمان دروق تكالي أنت دمتي ووينتن إن التاريخ فنك أقولهن أي فنك أي قولها مركز أنا وحنك عطسنا أنا مدحوينها أدنى فرينتان إيه جالس دونتين محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء سقيرة يوزير ورفافينتا وحنك عطسنا أنا جو محمد معلول نور أنا عطك فنانين يقول تهجريان إن مجلس الله بحيو خديجة عبد الله حميد دليس لكن دولة أيضا يجي عوين أيضا ملحة أنا قد واقع شن سنة لحظة برويا أمريكا هذويا شركة سنة هذويا بلغ فريق لندن مسمي إلا هذا مجا الصومالية وان وضع إلا كان أنت وضع يعني أنا ما نيجي جدون وزير دون ولقي الدولة دي خلاص كل واحد مودر صدق مركي أنا كان هايو أنا إزدبر مركي أنا هنن رك صاحب ده أي إتاقل وحنك عطسنا ولا لي مرة ما مرسدحات مدحوينها farmaajo inuu noo tixgeliyo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed oo ku hadlaayo inuu Khadiija Cabdullaahi Xamiid Daleys u bixiyo sababtoo ah isbitaal Digfirbo oo taariikh lahay nin baa lagu magacaabay ka soo tag jaamacadii oo Korea noo dhisi nin kale lagu magacaabay marka qaftaan xaq bay u leedahay xaq haddaan wax kale oo la fiirinayn ana codsigayga ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegay adiga waa idin sheegay waa tahay ustaad aad baad u mahadsan tahay codsigaasna waxaan rajeynayaa in dad badan ay ku maqlayaan sidoo kalena aan filayo in wasaaradda maaragtay
warfaafinta oo iyadu ay hoos timaado fanka iyo suugaantu ay talada qaadan doonto barnaamijkan imanka Mareykanka u joogtana waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in uu guula uu ku dhamaado ustaad markale aad baan kaaga mahadcelinaynaa abdi walaalahay aad baad u mahadsantahay adiga iyo shaqaalahaaga iyo madaxdaada iyo kulli guul baan idin rajaynayaa halkan halaga sii wado Soomaalinimada hala wado Soomaalinimada hala wado Soomaalinimada hala wado mideynteeda reer baan ku dhaaf walaalay mahadsantahay waa tahay ustaad Macallow aad baad mahadsantahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa ustaad Maxamed Macallow oo isagu kamid ahaa hablada waa bari dadka badankiisana ay ku yaqaanaan aalada inuu garaaco musiga aad buu u mahadsan yahay mar kale ustaad صعبت صويدا يتيبي صومالي وين صومالي وين وحانو هيا سالو